بسم الله الرحمن الرحيم ولا شيء صديق سيمون iyo mar kale asxaabteeda qaaliga soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad meel walba adduunka dacaladiisa aad ka joogtaan maanta waxaan rabaa inaan kasoo tuuro chicken yar oo masha Allah oo crunchy oo ciyaalka odaga qof walba aad siisan karto masha Allah chicken ka chef waaye waa chef legs ma aha maanta lug waaye laakiin adi legs waa ka dhigan kartaa aan laakiin chef aan hadda maanta haystaa marka asxaabi waxaan ku darayaa shafkaan halkan waxa igu jira toon iyo kamsar aan isku soo shiitay halkan waxa igu jira waa maxaa lahaa iyadana toonta shiidan oo wax yare basasha shiidan oo iyadana wax yare halkan waxa igu jira waa xawaashi buurbuur tender masala marka kutigood intay ku wada jiraan dhamaantood inta ay wada soo dhan halkaan ay ku wada jiraan marka waxaan sameeynayaa waxaan ku darayaa chickenka ayaan ku shubayaa saas ugu bilbilayaa insha Allah saas marka ugu bilbilo kadib hadana waxaan sameeynayaa waa ku daraa asagana ma sha Allah marka ku daro waan ku yara walaaqaya chickenkan already mar hore aan soo dhaqday qal iyo biyo kulul iyo cusbo ayaan ku soo dhaqay chickenka si fiican hal isaga nadiifiyo okay asxaabtayda qaaliga marka intaan saan aan u sameeyo waxaan sameeynaa kadib hadana okay way isdhex gashay sama ma jeexjeexna maanta waxa ma aan jeexjeexin oo mindi waxa ma aan marmarin sidiisaas aan rabaa inaan ku sameeyo ma sha Allah okay bismillah marka asxaabay bacdan sibli bag waaye in baca haysata aad isticmaali kartaa bacda gudaheeda waxa igu jira 3 qaado qaandadan saddexdeed oo chickenka aan ku marinay xawaashka saddexdeed oo bura ayaa igu jira marka waxaan rabaa inaan sameeyo chickenkii ayaan rabaa inaan halkaas ku guro hadii ilaahay ka dhigo ma sha Allah chickenkii marka halkaas ku wada guro burkaas muxuu marka ku sameeynaa burkaas wuxuu u sameeynaa wax yar oo crunchy camal oo yani oo u sameeynaya ma sha Allah afkaan ka xiraaya marka wada hal gacan ayaan ahay gacanta kale waa ku duubanayaa marka saas dheeysa oo jeedana walaana sama burkii marka saasaan ku yeelay bacdi iyo isku dhex marmariyay insha Allah marka waxaan sameeynaa hadana weelka ovenka ku gashan lahayn ayaan soo diyaarsanaa insha Allah asxaabtay qaaliga marka halkan waxaa ku soo shubtay qaandadan saddexdeed oo blue band waa kana blue bandkaas waaye aniga aan isticmaalay hadaa rabtid waxaa isticmaali kartaa butter isticmaali kartaa marka ovenka soo gelina wax yar soo dhalaashana waa isku soo noqoneena asxaabtay qaaliga marka wataasa ma sha Allah chickenka anoo bacda ka soo saaray waan soo dhalaaliyay maxaa la dhahaayay blue banki marka soo dhalaaliyay ovenka ku soo dhalaaliyay waxa sameeyay chickenkii aan bacda ka furay waa ku dhex riday marka ovenkan geenaya ovenka marka geeyo adiga ilaa 20 daqiiqo ayaan u deynaya hadii rabbiga raxmaanka ka dhigo mana dabooli doono saasaan ku dhaafayaa insha Allah la socod wacan bismillah marka asxaabteeda waa kasatay minute ayuu ku jiray marka dhinaca kale aan u gadinayaa dhinaca uu nooga bislaaday ma sha Allah waa u jeedaan soo bislaaday dhinaca kale aan ugu gadinayaa hadana dhinaca kale 30 minute ayaan u deynayaa hadana insha Allah waa isku soo noqonaynaa markaas hadana ma sha Allah asxaabteeda qaaliga waa ka saas ku soo baxay oo bislaaday ma sha Allah soo markaysaan quruxda uga daray ma sha Allah asxaabteyda marka waa soo diyaarsanayna insha Allah marka soo diyaarsano ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah bismillahir rahmaanir rahiim marka asxaabteena qaaliga waa tanaasaan ku soo baxay bariiskaas markaan karinayay iyo asparagus kamaanan idin la qaybsan geedka greenka asparagus baa la yiraahdaa insha Allah markaan idin la qaybsanaa chickenka baan maanta idin la qaybsanayay ma sha Allah chickenkeena waa kaas quruxda badan ayuu ku soo baxay bariiskina waa kaas baaragiskii ma sha Allah cabitaankii leenta ahaa oo meesha ka maqnayn asagana ma sha Allah mooskaagii waa kaas alaabtaada dhan isku ka dhameystiran tahay ma sha Allah asxaabteeda qaaliga marka waa kaas hadaa ka hesheen like ta share ka commentiga
intaba haynaga hilmaamina waa walaashin Sadiqa Siman oo in leh mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada ma sha Allah